maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer banaadirba sharaf ayay u tahay inaan soo gaarno maantii innagoo amni maamul yacni bah tacliimeed qayb kasta annagoo iskaashanayna inaan natiijadii laga soo shaqeeyey imtixaankii la qaaday sida amniga ah ilaahay mahaddiis ku soo dhammaaday ugu dambeyn maanta natiijadii halkan lagu soo bandhigay wax iska yimid ma aha halka aan u soconnana lama gaarin oo waa bilow wax badan oo aan rabno inaan gaarno amaba aan rabnay hadda ka hor inaan gaarno maynaan gaarin sababtu waa iska badan tahay tallaab kasta oo aan rabno inaan qaadno waxaa ka hor imaanayay caqabado ku wajahan isla waxbarashadii uu la soo wareegay gobolka banaadir dhaqangelintiisa inkastoo ay caqabado jireen welina jiraan haddana marna kama gaabinayno inaan gaarno hadafka aan leenahay oo ah ubadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo magaalada caasimaddu inay helaan waxbarasho bilaash ah cunug kasta oo qaangaara ama aan qaangaarinna uu wax akhrin karo waxna qori karo hadafkeenu waa halkaas si taas loo gaaro ayaan mas-uuliyad gaara iska saarnay federal levelka ama heerka federaalka mas-uuliyad ka sarraysa ee hanata waxbarashada bulshada banaadir arrintaas waa bilownay meel ayaan soo gaarsiinay waana sii wadi doonnaa biidni illaah haddii innagu aan tagno ila xilku waa meerto qolada timaada meel ay wax ka sii wadi karaan ayaan soo gaarsiin waxaan rajaynayaa marka ugu dambaynta inaan gaari doonno halkii ama yoolkii aan hiigsanayni caqabadaha yimid oo aan la kulannay waxaa ka mid ahayd oo ugu yar inaan bilow ahayn markaad bilow tahay oo aad dhalato isla markii suuragal ma aha inaad cararto ama socoto suuragal ma aha waa inaad kacdo waa inaad kufto gaddoona cunuga markau dhasho ou bilaaba cunug gaddoonuu bilaabay gaddoonkaas dhaqdhaqaaq yar gacmahu taagtaago inuu waxa qabsado masaasada iyo wax yar ama gacanta markii loo taago qabsado fariisto gurguurto socdo ordowgu tegaayo marka bilow ayaan ahayn markii aan bilowga ahayn meeshaan joognay ma joogno markhaataad ka tihi meeshii aan u soconnana maynaan gaarin waana ognahay ogaynna inaynaan maalmo bilo iyo 2 sano iyo 3 sano ku gaari karin caqabadooyinka jiray waxay isugu jireen kuwa aan ogayn inay naga hor imaanayaan laakiin aanaan ka waaban ee aan wajahnay iyo kuwo aan qorshaha noogu jirin oo ay ka mid ahayd COVID-19 wax lagu sii talagelayay oo la ogaa ma ahayn mararka qaarkood rabshadaha ka dhacay magaaladan siyaasadeed wax lagu talagelaya ma ahayn yacni waxyaabaha waxbarashada iyo habsocodkeeda hakad gelinayay ayay ka mid ahaayeen
waxaa ayaga laftooda caqabadaha ka mid ahaa wasaaraddii waxbarashada ee waxaan ayadu in muddaaba maamulaysay yacnii mabda'iyan waa leesla qaatay oo la go'aansaday oo leesla saxiixay in la soo wareego laakiin ficil ahaan inay dhaqan gasho ayaa ayada laftooda caqabadaha aan la kulanay ka mid ah welina meelaha qaar taagan waxaan rajaynaynaa marka in waxaasoo dhan ay dhammaan doonaan la gaari doono halka aan hiigsanayno waxayse ku xihan tahay sida ay baxdaan oo isku duumanu ay u dadaasho ubadkeenna qaar badan ayaan dugsiyada aadin waxaa halkaa lagu sheegay 26,000 in ka yar inay imtixaanka gashay sidaas oo maagaysan ma waxay macnaheedu tahay ciyaalka jooga gobolka banaadir ee da'da waxbarashada gaaray ama standard 8 soo gaaray ama gaari kara da ahaan inay 26 ku yihiin macnaheedu sidaas ma ah waxay noqonaysaa markay ugu badato boqolkiiba 15 da ahaan ciyaalka u qalma inay standard 8 soo gaaraan ama fasalka 8aad soo gaaraan qiyaasta guud wax dhab ah lama haayo laakiin waxay noqonaysaa ay noqon kartaa boqolkiiba 15